waayahay maxaa soo kordhay marka maxaa soo kordhay xilliga afurka ayaa hadda laga soo kacay waa aagaas iyo bariga dhexe isla markii waxaa yeerayo seerinka ama shanqarta digniinaha gantaalada soo socda iiraana waxay soo tuurtay sida caadada eedba gantaalo aad u tiro badan iyo drones ayaa soo socda oo dhanka koonfureed ee iiraan laga soo tuuray waxaa cajiib ah إسرائيل iyo Mareykan waxay leeyihiin waa hadda kornayso sidan oo kale waa dhacday indhihii Iran koraa laga joogaa drones iyo diyaarad waxba dul hayhaabay Iran saas ay tahay kataalada way soo socdaan dhanka koonfureed ee Iran waa la geli laayahay la geli laayahay barmuud caadi ah noqotay droneska Iran ee indhaha Israa'iil ayaa saaka mardamcay inay aagaas aadaan waxaa la soo riday ama soo dhacay gantaalo xooligooda uu dheereeyo waa kuwa Qubrus iyo gaarayo oo dhirirka badan waay Iran waxay haysataa ku dhawaad sida warkay sheegayaan 15,000 oo noocaas ah ayay wali haysataa marka Iran Israa'iil iyo Mareykan ujeedadooda ugu weyn hadda waxay tahay meesha ay ku sameeyaan gantaaladan dheer Iran iyada samaysato wax ay soo iibsato carabtan oo kale ma aha taasina fantina muhiim ah عربتان كله سعودي ما سمعي سكر قتال قدر قتال ما سمعي سكرت بحرين قتال ما سمعي سكرت كويت قتال ما سمعي عراق قتال ما سمعي سكرت إيران ما سمعي سكرت مركز إسرائيل يا أمريكان تضباطا الشنت ساعي هذا الصوت في وحي رادنا إيه وحتى ترلاض على استعمالها ماشي قصة مينا الرادنا جك واحد قتال لا واحد اللي بربرنا دبقا دمي كان دمي وحي واساس عدان مركز إلا هذا اللي ما أوجا إن إيران دولك هوستيس قصة ميسو إيران مالك القصة ميسو يكون صوت دعاي عدد كود أنت أحسد وحي يقدر لما أوجا لكن طبعا وحاعد إن إيران ولي كوس بدن أو قنطالة يدرونسا إنه حسته محايا لي مالك نويت ما أنت هدوا عركتين سعودية وإيران لح درونا لو طوري وسعودية عباضي نيكي محمد سلمان أها مقشين ودهاي بس ودقالك وقلينا أو أسجنا نوبل قاضي إنه دقالك نحكي كلام بلا أرجعنا wuxuu qaaday meesha wuxuu u maleeyaa Yemen ma u maleeyaa oo Imaaraadka Carabta uu ku bursanayay waa arki doonaa qaabku dagaalka asaga u galo waa arki doonaa waxa kale oo muhiim ah in saldhigii dhan ee Ingiriiska ay Qubrus ku yaalay oo weligiis la taabanin raax kaga jiif oo Ingiriis jiljilaa Ingiriis kale ma aha dirintii doodobti Ingiriis waa arag kaftaba Ingiriis saldhigii ugu yaalay Qubrus وكياعي محو أرضي لح حبة حتى واحد من أو درونس إيران لقى صوتور هودان اسكا صوت دولمر عراقي صوت دولمر سوريا صوت دولمر لبنان دولمر صالو سعودي قبرص أجد الآدي إنجليزكي والله صوت سعودي نينكي رجال إنجليزك أنا سهر استاجي هدلا ومخلصين مريكانو ها ديوغو غارشيا أرضو استعمال مريكان ديوغو غارشيا لو بالسوق هاي بانفصح لوسيو أو إنجليز يعني قوميس آن وهذا كوركو قبصدي لكن هشيس وكل جري dadka meesha degan Mareykankan wuxuu soo diray B2 Bombersk balaaydi waaweynada gantaalada bas maxal jiray bunker busters kala oo dhulka hoostiisa dulili waaya shakada marka meeshaas joogto kulay waa qabsanaysa u jeedin idinkaba dagaalka Iran iyo Mareykan iyo Israa'iil wuu ka balaartay wuu dhaafay dagaal adduun ayuu noqday waa hal dal oo Iran la dhaho oo aanan haysanin diyaaradaha ee Mareykan iyo Israa'iil iyo dalkan Carabta xitaa ay haystaan ma haystaan F-22 ما هستان F-35 ما هستان F-16 ما هستان ورجي F-17 وقد عفصن ما هستان وإيراني هل ديارت سوق عن كران ما هستان كو هستين أو روشك أها دكم داكم ولا جبربري وها هستا كود دجال ما يسا حد ترتان أنت حدا سد أفر مالن ودجالك سيس عضو لا بكليه كود دجال ما إيران إسرائيل يمريكان وحي كود دغالمايان 15 حبه oo wax saabir ku dagaalamaayaan sataraadka ku dagaalamaayaan diyaaradaha ku dagaalamaayaan drones ku dagaalamaayaan Iran waxay ku dagaalamaysaa kaliya waa drone iyo gantaalo bas labadaas ku dagaalamaysaa ilaa hadda Iran intaas ku dagaalamaysaa markay sheekada message joogto Iran waxay dhageyst qaybtan Iran waxay ku guuleysatay dagaalka inay ka dhigto dagaal adduun دجال أدون سأقول إكتي يوروب سعر برا كبلاد شذالك وقاليو هودو قال حتى الصومالية دتك بجاجلة وإلى السعودان شذالك قيمه درات أكو قدرتي إيمانتا اسكوميد معه 20% higher واي بري ويكسي دريسا ويكسي هير وحال جاري دونا ويوروب إيو هنديا إيو شينها جوارد الأسكتيو جوارد الشذالك وكشقيس
la iska dhigo guryihii korontada qaali noqoto heerkaasi gaari doontaa maxaa sababay 20% shidaalkan soo maro carabta oo gabi ahaanba istaagay sacuudi qam imaaraad qam qatar qam baxrayn qam kuwait qam ilbaabadii la xiray xalay marka sheekada meesha joogta xalay maraykan wuxuu damcay dhulkan Suez aan dhahay Hormuz dhulkan yar 15 kilomitir xuduud yar oo bad wahay Iran iyo Khaliijka xuduud yar oo bad ah oo Hormuz ayaa u dhaxaysa qariirada ugu jeedaan maraykan wuxuu xalay damcay inuu aagaas xureysto waatuu burburiyay qaar ka mid ah maraakiibtii Iran ee dagaalka maxuma dhulkii hadda xuduudo Iran leeyahay droniska waxay u soo socdaan sida shinida oo kale maraykan markab in laga burburiyo ma rabo waa la qaxay marka faransiiska xalay wuu ka qaxay imaaraadka carabta wixii soo duubtay carar fakatah maanta waxaa soo xanaaqsan hadlay ninka la yiraahdo Macron ha hadle ar Yurub jijlaa dadkan dadkii ma aha World War II dagaalamay ma aha Macron xal ay maanta markuu hadlay wuxuu yiri nuclear kala ku dara waa ishubeena u taagan hadda lagu tagso kacay Qobrus soo joogo Faransiis oo cararay maraykan oo ilaa hadda su'aal Hormuzka furi la oo Iran meesha ka xoreen la iyo Israa'iiltii oo wax alaali waxay sameeyso qaybta koonfureed ee Iran ilaa hadda gali la war intaas miga saarto Iran xulufo ma haysato Iran waa la cidleeyay waa laga kala cararay ruushka ugu dambeeyay قائد بوتين wuxuu telefoon u diray baata imaaraadkii telefoon u diraa Jordan u telefoon u diraa Bahrain u diraa Sacuudiga ugu dambeeyay maanta la hadlay istijiya meeshii adkays lahaday uu ka bixi waayay kii Shiinayska ku soo haray asagana imaaraadka la wacay shidi abu sliidan iyo lacagtan iyo alaabtan adduunku waxaas u jeedaa mogta Iran maxay eegalay taagiin Iran marka kaligeed ma ishtaag dagaalameysa bal aragno waxa maanta qudbeenayo muuqaalku xigo idin soo duubay jiro waxa hadli raba daqiiqadaha soo socda ninka la yiraahdo Donald Trump hadda idin sii qasho waxa uu sameyn doono ciidamo dheeri ah dira iyo diyaarado dheeri ah dira ayuu taagan yahay dhankaas Iran maadaama si fiican loo jicin la ayada waxa la isugu geenaa awood aad u far badan Mareykankana maanta ninka afraad oo askari ah ayaa ka dhintay Lubnaan aan dhahay Kuwait waxay soo riday si qaldan diyaarado Mareykan ah aagi dhana marka qasmay oo fool xumaaday sicir barra bilawday adduunkii dhan hadda adduunka wuxuu fiiraa Mareykan Israa'iil leeyahay ruuxa naga xaliya ama Iran meel saara ama nimayahow isdhiiba oo naga fadhiista sheekada sideeda hor dib ha ugu laabato bal arkayna meesha ku dambayso